madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftigii uu hogaaminayay oo wali safar shaqo ku jooga dalka Kenya ayaa sharaxay markii ugu horeysay kulanka uu la qaatay madaxweynaha dalka Kenya Master Uhuru Kenyatta. hadalkayagii maanta madaxweynaha Kenya waxa aad u faraxsanahay inuu ahaa mid run aan soo sheegnay xaaladaha si waaqici ah weegnay labadayda dal dantooda danta geeska Afrika iyo dhibaatooyinka jira shaqooyinka soo loo xalilayo iyo mustaqbalka in aan noqono madax Afrikaana oo dalkooda mustaqbalka uga fikirta sidii ay u gaar lahaayeen caalamka ay dhibaato uga bixi lahaayeen waxaan soo taabanay inuu gees inay East Afrikada bari shanta qaybood ee Afrika inay iyadu uga shaqaaqa badan tahay oo ugu dagaalamo badan tahay oo si darteed dhalinyaradeedu ugu shaqalaan badan tahay oo dhibaatooyinka aad u badan yihiin waxaan si wanaaga Kenya inay noqonayso iyadu inay geeska Afrika maanta noqonayso ta ugu nasiib badan ee horumar sanaysay xorta ahay dhaqaale ahaan aqoon ahaan siyaasad ahaan madaxweynaha oo sii watay hadalkiisa ayaa hoosta ka xariiqay in madaxda ay la kulmaan ay u sheegaan inay ka socdaan dal madax bannaan waxaanu caalamka u istaagno ka socono dal 30 sano jiray oo madax bannaan oo iyagu dalkooda maamusha oo nabad ku noolaa 30 sanadood oo jaarkana nabadgeliya adduunkana nabadda qayb badan ugu deeqa adduunka oo dhan oo gudahooda wixii shaqaaqaana iyagu xalista hay'adaha caalamka ee lacagaha adduunka ayaa sida World Bank iyo hay'adaha kale aanu midna wax deyna ku lahayn midna caawin 30 sanadood dawladaha caalamka oo dhan ee jibcida qurumaha ka dhaxaysaana aanay midina oranayna waxaan la yeeshay wax caawima ama wax isweydaarsi toosa midna aanay deyn u sheeganayn oo haddana 30 sanadood horumar weyn sameeyay dhinac walba waxa kale oo ka hadlay madaxweynuhu qorshayaasha mustaqbal ee Soomaaliland haddii ilaahay dhaho Soomaaliland waxaan doonaynaa mustaqbalka dambe inay weligeed nabad ahaato qaladaha siyaasadeed ka dhicin dhibaatadii aan xalliyo si aanu u gudno waqtiga naga lumay oo mustaqbal degdeg ah u sameeyno inaanu taa waay araga ay leedahay Kenya iska kaashano oo horumar wada sameeyno dhinaca dhaqaalaha diblomaasiyadda amniga iyo wada qabsiga guud ahaan rajana waxaan ku qabaa dhawaan muddo gaaban dhexdeed in la arki doono miraashiga ka soo baxay